السلام عليكم. maanta fiiriga wuxuu ku saabsan yahay timirta waad ognahay Soomaalida waa idil oo cuntaa laakiin waqti khaas ayay cunaan waqtiga Ramadaanka iyo waqtiga la sooman yahay kaliya ayaa cunaa laakiin dhakhaatiirta waxay dhaheen timirta oo maalin walba la cuno waxay yareyn kartaa blood pressure ka yareyn kartaa cudurro badan ayay daawo u tahay timirta. Rasuulkeena waa inoo sheegay timirta faa'iidada ay leedahay, quraanka xataa waa lagu sheegay saa wada ognahay timirta faa'iidada ay leedahay. marka maaha inaan waqti gooni ah u sameyno oo micnaheedu waqtiga kaliya aan cunno waxaa weeye caafimaadkeena dietkeena inaan ku darno waaye. Timirta mida kalena waa wax kaliya macaan oo aan faat ku siinaynin. kiilooyin waa kugu fooli karaan laakiin baruur iyo faat ma aha. Shokolaatooyinkan iyo dhinacyada magaalka yaalo kala maanta ma aha. waa wax macaan natural ilaahay u abuuray macaanida faa'iido badan ayay leedahay. kuwa caafimaadka hadaa fiirino website-kan caanka ah wada naqaano oo ka hadlo organic facts ayaa maalin hore akhrinayay maantana mar labaad ayaa akhriyay faa'iidooyinkiisa akhrinayay maasha Allah zaid ayaa u leeyahay faa'iidooyinka ay leedahay. haddaa akhrino faa'iidooyinka oo jirka u leedahay fiiri midda koowaad waxaa lahay bone health and strength lafaha iyo strength zaid u saacidaysaa xoogga iyo lafaha ka saacidaynaysa timirta la cuno. bismillah timirta saa mareynayna maaha anemia fiiri anemia xataa way saacidaysaa timirta. fiiri waxay kaloo daawo u tahay allergiga dadka allergiga qabo oo jirka iscuncunaya cuntooyinka gaar allergy ku ah dateska ma ku jirto qof walba allergy leh hadduu cuno wax ma ka tarayso faa'iido badan ayaa leedahay. weight gain saa ka hadalna weight gain hadda ay sheegay dadka iskiiniga inay weight fuula rabo hilibna isku daran rabo ama kiilooyinna isku daran rabaan timirta faa'iido weyn ayay u leedahay. timirtadana waxay leedahay sokor oo natural ah micnihii oo sokortan dad bilaadanka sameeyay camal ahayn. marka waxaa leeyahay timirta faa'iido badan ayay leedahay. aniga khaasatan laba bac baan ka saaraa isbuuci ama isbuuci gudahooda aad ayaan u jecelahay. koob kafee soo shubanaya ama koob shaaxa enough 5-6 ka saaraya maalinta timir cunitaan bilaabno isbedel weyn aan ka dareemo dietkii because dietkii nadiif ayuu noqday. shokolaatada iyo nacnac iyo wixii aan cuni jiray kaga maarmay macmacaankii oo fake ahaa macmacaan natural ilaahay geedka soo saaray aadaka caajisayna cuni kartid ayaa yaalo. waxaa ku leeyahay timirta cun. fiidiyogan haddaa wax ka faa'iidayna please subscribe asxaabtaadana la qaybso subscribe garee like comment waxa su'aalaha qabtidna commentiga igu reeb mahadsanid.